السلام عليكم صاحبيال kusoo dhawaada channelkeena Echo Friendly Girls. like share and subscribe السلام عليكم صاحبيال kusoo dhawaada channelkeena cusub Echo Friendly Girls. Waanigoo nagu barateen barnaamijyo xiisi gelinayo oo ku saabsan wacyigelinta deegaanka iyo qayqabka beeraha iyo wixii la mid ah. maanta oo ah maalinta cuntada adduunka aan muhiimadeena saarayno maalinta cuntada Soomaaliyeed waxaan aad iyo aad ugu hadlaynaa cuntada Soomaaliya iyo muhiimadda ay u leedahay dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Soomaaliya waxaa muhiim noo ah inaan cunno local ah oo kasoo baxdo wadankeena sida mas'uuliyadu ay nooca ka dhigno aan iska dhaafno waxyaabaha dibadda laga soo iibinayo kaasoo keenayo pollution aad u badan plastic waxyaabo qashin oo dhibaato ku ah deegaanka mar walba waxaa la sheegaa qof shay walba inuu leeyahay halbeeg ku saabsan in la dhiso xilli munaasab ah. maantana waxay ku beegan tahay World Food Day. cuntada waxaa u baahan noolo walba ee dunida saaran ha ahaado bini'aadamka xayawaanka geedka iyo waliba microorganismska cuntada waa wax bini'aadamka u baahan yahay iyo waliba noolo walba ee dunida saaran wadan walba oo dunida aanaytii waxa Ilaahay ugu talagalay cuntadiisa inuu ku noolaado tusaale ahaan haddii adiga tahay qof Soomaali ah tiraahdo wadan qabow ama baraf ayaa ku noolaanaya sidee noqonaysa xaaladaada ma ku noolaan karto sababtoo waxa u baahan tahay adaptation badan inaad la qabsato qabowgaasati waayo Allah subhanahu wa ta'ala kuma takalgelin inaad ku noolaato wadankaas qabow sababtoo Ilaahay wuxuu kugu umay wadan tropical oo aad wadankaas ayuu Ilaahay jidkaaga ugu talagalay haddii aad tiraahdo waa ku noolaanayaan way ku adkaana sidaas oo kale cuntadana waa sidaas oo kale iyadana waxay u baahan tahay adaptation inaad la qabsatay jidkaagana caafimaad soo wehelo waxaa anaga nahay Echo Friendly Girls waxaa maanta munaasabadan wax kala maahan in laga ogaado special Soomaali inaan ka dabaal caalamka inaan u dabaaldegno maalinta cuntada aan iska dhaafno waxyaabaha halista keenayo si aan u faa'iideysano wax soo saarkeena beeraha iyo deegaanka anaga waxa mar walba u soo jeedinaa dalka fiidooyin xiisa kali kaasoo ku saabsan waxyaabaha la saaxiibaa deegaanka aan ka ilaalin wax walba oo saameyn u geysanayo deegaanka Soomaalidu walba ma fahansan wax la loo deegaanka anaga waxa u sameeysan kanaalkan waxa waaye inaan fahansiino dadka